aad iyo aad u mahadsantiin madiyatiin danaan media warbaahinta aad tuisaan oo dadka deegaanka ka baahitaan yani inaa u soo bandhigtaan waxyaalaha jira ee maanta ka socdo qaarada ka socda ama wadanka ka socda xagga hadaan u gudbo VOA-da xilligii la asaasay hal idaacad Soomaaliyeed ahayd oo BBC taasoo dadka qaarkood u arki jireen inay maaragtay sidii loo rabay dadka ugu baahi karin marka dad badan baa soo dhaweeyey waayigii dambe oo VOA la furay 2007 dadkii soo dhaweeyey maaragtay aad u xiisayn jireen ama oo dhageystayaasha ahaa waxaa filayaa dhowrkii sano u hore 2 sano u horay ay u shaqaynayeen si cadaalad ahaan oo maaragtay warbaahinta gobolka meesha joogaan bay Soomaalida sida loogu talagalay u yartooyaan laakiin bariyahan dambe VOA waxaan u arkaa inay noqotay maxaan ku tilmaamaa sidii warlordkii Soomaaliya ka jiro kale inay u dhaqmaan oo xagga maaragtay waxay doonayeen waxay jecleen ay si rabay u dhigeenin waxa kale ee rawaana maaragtay ee buuniyaan oo maaragtay ay sameeyaan haddii aan soo qaato wadanka kale joogno ee Kenya iyo maaragtay waqooyi bari Kenya iyo ka hadalno gobolada maamul goboleedka Jubaland, Puntland, gobolada dhexe koonfur galbeed maqsuud meelay joogin mar hore ka soo joogin warbaahinta siday u soo kala duwan warbaahinkana ismalaha haddii aan fiirino dhinaca Jubaland iyo Kenya waxay ka gudbiyaan waxyaalo lidku ah wax meesha aad uga fog oo arrin aan jirin oo aan meesha waxaan Olympica iyo ka soo gudbiyaan oo propaganda u badan waxa loo imaaday wuxuu ahaa in dadka ka baahi tiraan si dhamaystiran u gudbiyaan maamulka dadka ku dhaho Jubaland oo kale waxay ka sheegaan maamulku meesha joogo ay marwada qaarkood iska wareystaan dad aan loogu talagelin oo miisaan isku lahayn siyaasadda waxna kaga jirin dadka madaxda joogo waqtiyaal badan oo caalami ayaa imaada oo ka soo qayb galay dadweynaha hadda ka soo qaato waayigii Jubaland baarlamaankeedii la aqoonsanayo la isku imaaday wadamada madaxda IGAD oo caalami ah gaar ahaan dowladda Itoobiya Kenya dad badan oo ka soo qayb galay Geeska Afrika iyo international community si ay rumaysi tooyin inta oo jeer baarkaysan madax oo ka socdo maamulka Muqdisho oo yimaado oo waxba ka sheegay dadkeedii ay qaadato nin yar oo meelaha iska joogo oo mucaarad ku ah ay wareysato ay dhahdo sidee u aragtaa maamulka Jubaland soo wax u wado oo shaqo kale ay ka fog warbixin quman aan ka siin karin wax meesha yaal marka waa nasiib darro u arkaa xagga Kenya bini aan u soo gudbin hadda aan joogno dhinaca waqooyi bari Kenya Nairobi hadda aan kala hadlayo sidee warka u tubiyaan waa si la dagaalsan yihiin Kenya waxa u moodaa ciidanka Kenya oo aaday Soomaaliya inay ka xunyiin la dagaalsan yihiin yani waa ku dheeraa waa muhubaysno waa macna hukuumka ka noqon oo sidii way dagaalamayaan macna ayuu hublaan ku dagaalamayaan sidii Kenya mar walba ciidankeeda Jubaland waa amniga ka soo xududiyada suuq sidii ooga hadlaan ciidamada kale ee Uganda iyo Burundi iyo Muqdisho iyo Bokol iyo Bojo ama gobolada dhexe jooga ilaa sidii Djibouti oo ooga hadlaan waxaan arkaa marka qolada VOA madaxda ninka la yiraahdo magaciisa Farxaan Yabarow waa nin halka fiiriso aqoon dheer u leh warbaahinta iyo shaqada ku soo jirta hadana qaabku wax u hagaayo oo ka fiirso waxyaalo badan ka maqan asagii dadka saacadiisa la shaqeyso waxaan u aragnaa laanta Soomaali VOA inay u shaqeeyaan qaab ka fog reality iyo wixii loo ignoray oo u shaqeeyaan arrin ayagu jeedkooda ama qalbigooda sidoo jecel inay ugu sheegaan ummadda ugu turjumaan ummadana waxaan jirin looma turjumi karo looma sheegi karo waxa waaqada yaalo ayaa loo baahan yahay inay ku tago inay dowladda tagaan Jubaland wali kuma laho uma tagaan kolkay ka badan wayso waxay sameeyaan inay wareystaan dad meelaha ka dhow ama mucaaradku ah oo wareystaan intaas baa la sameeyay waayo madaxweynaha la dooran jiray waa garanaysaa sidee u hadli jiray intaas madaxweynaha Jubaland laga sameeyay intaas baa taagan dagaal baa ka dhacay jaad la duw sanadii bar wax qarax ama xaga maartay amniga oo laga sheegi karo oo dib ka dhacay xaaladda aad u fiican tahay amniga waa la socdaa inkastoo hadaayo kaliya adduunka joogana waa TV-da caalami joogaan way adduunka maanta u hormaray website-yada caalami iska joogaan waxa oo dhan soo gudbini haddana macnaha ay sharaf ahaantooda sidii mudnaayeen sidii VOA caalami u tahay ayay u arkaa hawshooda inay u gabeen mucaarad badan oo xumaan badan isirnacay badan ku jiro sidii dad badan oo Muqdisho ama deegaanka joogo u dhaqmaan ayay ila tahay anigoo ku nool wadanka Kenya in badanna degay sidii wararka duwayna la socday midka ka soo ay qaataan marka waxaan leeyahay laanta af Soomaaliya ee VOA inay u shaqeyso dadka Soomaaliyeed oo ay joojiyaan kala qubka kala gogoonka shaqadii ay geliyaan xasarada faraha badan ay ku dhacayaan inay ka joojiyaan baari u doorshadaya ninkaas uu madaxdu ka yahay
shaqaalihii soo dhanbo inay arrinta ka waanduwaan baan usoo jeedinayaa Kenya ma noqoto Nairobi anada kala hadlayo ama noqoto waqooyi bari Kenya mar walba qofkii warkii tuunayaan Kenya ay ka tuunayaan arrin mid ku ah dawladda Kenya iyo dadka deegaanka Soomaalida degan waqooyi bari Kenya ayaan baan ka dhigaystaa wax wanaagsan oo khayr ah oo sheegan ma jirto waxa ka hadlaan in yar haduu dhaco oo amniga aad u muhiim maalin walba uu muqdisho sida aragtay intaasoo qarax baa ka dhaca intaasoo ciidan baa ku dhinta madaxtooyadii baa la galaa haddana sidee tahay ogama hadlaan oo ma sheegaan oo maaragtay ma sii muuniyaan marka waddankan Kenya waxay ka xun yihiin baan u maleeyay iyo dad badan oo muqdisho joogo ama koonfurta Soomaaliya joogo ama madaxweynaha iyo maamulkiisa waxaba ahaaba muqdisho ka jiro ciidamada Kenya joogo ee nabadgelyada u imaaday inay waddanka amniga sugaan xuduudkooda ilaaliyaan Soomaalida Kenya waa dadkii ugu badnaa shan boqol oo kun oo qaxooti ayaa ku nool waddanka Kenya oo Kenya soo dhaweysay meel ay ku nool shan boqol oo kun oo qaxooti ee Afrika ka jiro aan ka ahayn waddanka Kenya aqoon ku yeeshay waxbarasho ka samaystay dhaqaale ka samaystay aad loo soo dhaweeyay waddankay ku noolaayeen inta ka samaystay tijaaraha ka samaystay sida Nairobi oo tijaaraha ka samaystay Soomaaliya waa iskala intaasoo shaqay baa intaasoo meel baa iskala haddana waddankay ku noolaayeen haddana inay guwaan oo ka sheegaan wax xun oo lidku ah ama waa arrin nasiib darre ah oo aan garanayna qofka wax u fiican iyo wax xun waa ka marka si guud ahaanba haddaan uga hadlo waddanka Kenya wax lidka ay ka gudbiyaan marka waxaan leeyahay idaacadihiina oo ka tuunaysa dadka Soomaaliya ee beelitaan oo la fahmi karo oo macquul ah inay u soo baan lahaa haddii aan nahay dadka Kenya ku nool Soomaalida warbaahinta si fiican ugu hagaajiyaan kana dasaan xarabta leeska iyo qofta leeska iyo xeer loo baana oo maamulka halka joogo wixii adina ibin halka anagana waa dhacay ha ku shaqeynina qof furan oo wariye inay noqdaan arrintooda ka saaraan qalbigooda ka saaraan qabiil iyo juqraafi iyo deegaan ka saaraan dadka u gudbiyaan waxa reality ee ka jiro waddanka inay gudbiyaan ayaan usoo jeedinayaa Kenya way isku furan tahay idii caalami way haystaan wax yar oo iyo oo meelaha laga heshiiyay inay si gaaraysaa iska yarbo dunka warbaahin badan baa jira oo meel walba wax